الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزيرada saaxiibaday ah gudoomiyaha gobolka Banaadir aqoon-yahanka gudoomiyaasha jaamacadaha daladaha iyo aqoon-yahanka dhammaan meeshan jooga ee dhalinyarada iyo miidiyaha dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib runtii sharaf ay noo tahay inaan maanta goobjoog ka ahaano hay'adda dad gudoomiye Dr. Ali Sheekh Axmed Abubakar oo gudoomiyaha ka yahay gudoomiye madaala dhahay libaaxyaha horteeda fadhiya ninkii aftaanka marka aniga waxaan u sheegayaa dadka bahda waxbarashadana waa ka mid ahaa runtii odayaashan hadda la sheegayo magac dhaweyna raggii odayaasha ah ee aniga isoo barbaariyay isoo waxbaray aan isku soo gaarnay da'da dhex ayay yihiin marka runtii aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta annagoo public ka shaqeynayno ayagana weli arrimihii bulshada iyo waxbarashadii iyo taabagelintii kor u qaadistii aqoonta jiilka Soomaaliyeed ka wada shaqeynayaan inaan iskugu imaano mar labaad anay sharaf ii tahay farxad gelinaysaa. intaas kadib mawduuca runtii la qaatay oo laga hadlayo dawlad dhiska Soomaaliyeed waa mawduuc aad u baaxad weyn oo runtii annagu inta aan ka aragnay waatu gudoomiye madaalo sheegay 30kii dambe ayaanu annaga aan kor taagnayn markii dib loo yara laabtana mararka qaar waxaan isleenahay niyo bal weligeed state building iyo dawlad dhis Soomaaliyeed laga soo hadli jiray taariikhda dheer mararka qaar waxaan isleeyahay taariikhda marka dib u laabato ama xoogaa soo yara qaloocat maxaa yeelay awal dadka Soomaaliyeed waxaad Soomaaliya waxa wax ka qori jiray ajnabi marka fiiriso ama ardayga aad tahay ama wax uun aad isleedahay ka faham laakiin wax garadkii iyo ii sheegay aqoon-yahanka Soomaaliyeed aad buu ugu yaraa maxay taariikh sal leh oo professor Keenana yiri salka gunta hoose asleed marar qaar waa shakinaysaa maxay yeelay xadiistii sanadkooda marar qaar la duri jiray sidee wax u socdaan waxa laga yaabaa message delivery qofka hadda wuxuu dhaho iyo qofka kontanaad ama boqolaad waxa laga yaabaa inay wax un isira dhaafaan marka cabsi marar qaar waxaad shakinaysaa waxa isleedahay in taariikhda xoogaa dhabaheedii wax un laga soo yara khalday marka anaga waxaan isleenahay markii loo fiiriyo aqoon-yahan aad waxaan uga hadalnaa perfectionka ama waxyaabo mithaaliyaad oo banaanka markuu qofka joogay markuu public joogo waxaan isleeyahay niyo labadooda ayaa iskugu kaa qabtay mararka qaar oo markii dawladda la joogo markii banaanka la joogo quruxda iyo ii sheegay 100% natiijadeedna waxaan ku base gareynaa inay 100% noqoto markii laakiin aad gacanta wixii kula jirto practically shaqadii hayso waxaad isleedahay waxan misaanay ahaayeen marka ana waxaan jecelnahay aqoon-yahankan maanta meesha jooga oo runtii khibradooda iyo ii sheegay laxawooda waa dareemi karnaa in bal wixii si la isku waafajin lahaa idinka indhihii ah idinka yani labeentii ummadda Soomaaliyeed public iyo marka in la isku qabto howlihii kale ee private-ka aadan taas horta waxaan isleeyahay waxyaabaha anaga aan yara taabanayno aan loo fiirin academic perspective aan laga fiirin laakiin wax waaqica meesha yaal mararka qaar in aad loo dul istaago mar kale waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan waxaan rajeynayaa in ilaahay idinkiis miro dhal iyo wax loo aayo inuu ka soo baxo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.